السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin dhowto jaridada New York Times ee Mareykanka ayaa report bay soo diyaarisay markii taariikhdu ahayd 30 May 2025. waxay tiri inuu Elon Musk ninka adduunka ugu qanisan ee dalka Mareykanka u dhashay inuu qirtay inuu xanuun khatar u hayo. waxay dhahay ninkaas waxa haya depression ama xanuun nafsiya ayaa haya xanuunada dhimirka oo murugo iyo niyad jab badan baa soo u xuqaata kiniin kale ilaha ketamine kiniinkaas oo daroogo la siiyo dadka depression ku haya niyad jabku ay hayso ayuu qaataa. waxayran Elon Musk wuxuu qirtay uu sheegay inuu waqti dheer noloshiisa u qaadanayay kiniinkan ketamine oo sidoo uga daweeyo depressionka ama xanuunka nafsiga haya. wuxuu inuu kiniinkaas uu ka caawiyo inuu waqtiyada adag ee noloshiisa ama duruufaha adag ee nafsiyadiisa ama qalbigiisa dhaawacday jabisa inuu kaga baxo. kiniinkaas loo isticmaalo depressionka uu qaato Elon Musk saameyn xun buu ku leeyahay jirka khaasatan kaliyaha iyo kaadimarinta. Elon Musk dadka aan garanayn waxa uu ka mid yahay ama waxa weeyaan ninka adduunka ugu lacagta badan ugu qanisan. ninkaas lacagtiis waxa lagu qiimeeyay 488 milyaar dollar. qof ka horeeyana ma jiro adduunka oo lacagta sameeyay. ninkaas uu power buu leeyahay oo saameyn buu ku leeyahay bulshada iyo mujtamaca Mareykanka oo madaxweynaha Trump ayaa xataa ka dambeeya oo ka baqa. ninkaas markuu dal soo booqanayo dadka ugu sareeya dalkaas ayaa soo dhaweeya ama madaxweynaha dalka ama wasiirada dalkaas ayaa soo dhaweeya. ninkaas oo powerka iyo saameynta iyo lacagtaas iyo shabaabkaas leh waa maxay sababta inuu niyad jabo ama murugo uu dareemo. taas waxay ku tusaysaa inaanay farxadda aanay soo iibinin lacagto ama lacagtu inaanay ku siinin farxad iyo nabadgelyo iyo hurdo wacan iyo caafimaad. laga yaabaa nin miskiin oo beer yar leh oo beertaas waxdo dhan qodaayay oo daalay inuu ka farxad badan yahay markuu guriga ku soo noqdo oo cunto yar oo diiran islaantiisu ay soo caruurtiisa oo la ciyaarayo gurigiisa inuu habeenka markuu seexdo si fiican u seexdo ka farxad badan yahay. farxaddu farxad sad u dareemtid dhowr shay ay ka timaada. waxyaaba farxadda keenta waxa weeyaan marka ugu horeysa inaad ilaahay ka cabsiga ilaahay ama xadhiga ilaahay inaad haysatid inaad isku halaysid alqawiy alaziz ee wax kasta gacanta ku haya oo aad ku qanacsan tahay inuu markaad ilaahay u dhawaatid inaad farxad iyo nabadgelyo aad helaysid. farxaddu waxa ku timaada inaad ku qanacsanaatid wuxuu ilaahay kuu qoray iyo wuxuu ilaahay ku siiyay gurigaaga iyo noloshaada iyo caruurtaada iyo lacagtaad haysatid inaad ku qanacsanaatid aad ilaahay u mahadnaqdid. farxaddu waxay ka timaada inaad aaminsanaatid wuxuu ilaahay kuu qoray hadda adduunka cid walba ka hor istaagtay inay ku imanayso wuxuu ilaahay aanu kuu qorinna si kasta aad u carartid aad u dadaashid inaanad helaynin. farxad waxay ka timaada inaad aaminsanaatid inay jirto aakhiro iyo xisaab ilaahay ka abaal marinayo dhibaato kasta iyo dhaawac kasta inay jab kasto noloshaadii gaadhay inuu ilaahay ka abaal marinayo aakhiro oo aad jannad iyo farxad aad helaysid. qofkii ku dulmay ee xaqaaga cunayna inuu ilaahay xaqaaga uu kaaga qaadayo inay aakhiradu ka khayr badantay oo ka wacan tahay adduunyada markaad aamintid ayaad farxad helaysaa. farxad waxay ka imanaysaa xaashad qur'aan aad akhridid oo aad si fiican u akhridid macnaheeda aad fahamtid oo aad garatid xaraf kasto qur'aanka akhriday inuu ku siinayo 10 xasanadood 10 sayi'aadna inuu ka masaxayo. farxad waxay ka imanaysaa qof walaalkaaga oo aad jeceshahay oo ka naxo oo amiin ah oo aad dafeeysatid biliid aad wax ku wada wadaagtaan. farxad waxay ka imanaysaa markuu ilaahay ku siiyo zawjad saalixa oo cibaadad loo ilaahay ka cabsanaysa oo caruurtaadii gurigaaga aad isku haleynaysid. nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yiri khayr mataa'i dunya almar'atu saaliha wuxuu waxa ugu khayrka badan qof uu heli karo waa gabadh saalixa. waxaana xasuusataan markaste ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un sadaqallahu alazim. ilaahay wuxuu yiri quraanka iyo diinta xaqa iyo xadhiga ilaahay ayaa ka khayr badan oo u qalma in lagu farxo inta ku farxi lahaydeen adduuniya wax yar oo bilaa macno aad ururinaysaan taasaa xaq u leh inay ku faraxdaan. farxaddu waxay ka imanaysaa inaan xadhiga ilaahay ku xidhnaano oo ilaahay ku qanacsanaano wuxuu ina siiyey
marka alxamdu lilaahi cala nicmati alislaam walxamdu lilaah inaan ilaahay aan garanayno iyo sunnada nebigiisaan haysano waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh